Welcome to the king of the house. In this delightful, humorous tale, we meet a lovable little boy who thinks he rules the home, until things don't go quite as planned. It offers a gentle lesson about kindness, sharing, and cooperation. As a bilingual book told in both English and Somali, it is a wonderful way for young readers to naturally build vocabulary. Remember, you can follow along with the paperback version to enjoy the beautiful illustrations. To buy the book, visit somali4kids.com or scan the QR code. Now, let's begin the story. Ku soo dhowaada sheekada Boqorka Guriga. Sheekadan xiisaha iyo maadada leh, waxaynu kula kulmaynaa wiil yar oo aaminsan inuu xukumo guriga ilaa ay wax walba u dhici waayaan sidii uu qorsheeyay. Waxay xambaarsan tahay cashar dabacsan oo ku saabsan naxariista iyo wadaagga. Maadaama uu yahay buug laba luqadood ku qoran, waa hab u sahlaya akhristayaasha yaryar inay si dabiici ah u bartaan erayada. Xusuusnow, waxaad la socon kartaa buugga daabacan si aad u eegto sawirada quruxda badan. Si aad u iibsato buugga, booqo somali4kids.com ama sawirka codka. Haddaba aan bilaabno sheekadii. The King of the House by Somali for Kids. Written and edited by SFK. Translated by Abdi Hakim Muse Mohammed. Illustrated by Noura Diria. Boqorka Guriga oo ay diyaariyeen Somali4Kids. Waxaa qoray oo tafatiray Sifke. Waxaa tarjumay Abdi Hakim Muse Mohammed. Waxaa sawiray Noura Diria. So here I come. I am the king of this house. Who am I? I am Sami. I am 3 years of age. And I rule this household. Waa ikan. Waxaan ahay boqorkii gurigan. Kuma ahay. Waxaan ahay Sami. 3 sannadood ayaan jiray gurigana anigaa xukuma. That's right. I know exactly what to do to get what I want. How did I learn? Waa sax. Waxaan garanayaa sidan u helo waxa aan doonayo. Sidee ayaan u bartay? Well, it's very simple. I am the youngest. Aad bay u fududahay, waxaan ahay ka ugu yar. And Mummy, she loves me so much that she just melts at the sound of my voice. Hooyo jacayl daradeed marka ay maqasho. Codkayga ayay dhalaashaa. I learned many things from my siblings. They had no idea I was watching them. But now they will know that I am the king of the house. Waxyaabo badan ayaan ka bartay walaalahay. May ogayn inaan daawanayo. Laakiin iminka waxa ay ogaan doonaan. In aan ahay boqorkii gurigan. For example, just the other day I wanted some ice cream. Tusaale ahaan, maalin dhaweyd waxaan doonayay gelato. Impossible, you would think. Not for me. I waited for Mummy to be on the phone. Way adag tahay ayaad is odhan kartaa. Aniga iima adka. Waxaan sugay inta ay hooyo telefoonka ku hadlayso. Whilst she was talking, I ran straight to the freezer, grabbed the ice cream and hid under the table. Inta ay hadlaysay ayaan talaagada ku cararay. Gelato ayaan kala soo baxay kadibna miiska hoostiisa ayaan ku dhuntay. Of course Mummy saw me. My face full of ice cream gave it away. Dabcan hooyo way ii aragtay. Wejigayga oo gelato ka buuxdo ayaa i sheegay. But I am so funny that she couldn't resist, laughing at my dirty face. Laakiin waxaan ahay qosol socda oo way joojin kari weyday in ay ku qosolsho wejigayga wasakhda ah. Another thing I am good at is getting attention.
Waxa kale oo aan ku fiicanahay waa sida dadka loo soo jeedsado. I just scream and shout. Anigu waan qayliyaa uun. This makes her stop what she is doing and give me whatever I want. Tani waxay joojinaysaa waxa ay samaynayso. Oo waxaan doonayo ayay ii siinaysaa. I control the TV. How? It's simple. I am the best at how to hide things. Telefishinkana anaa xukuma. Sidee? Si fudud. Aniga ayaa ugu fiican sida wax loo qariyo. That's how I get to watch baby TV all day long. Sidaas ayaan ku daawada baby TV maalin oo dhan. My siblings get annoyed sometimes. Walaalahay way xanaaqaan marmarka qaarkood. But I know how to take care of them too. I trick them by giving them kisses. They can never refuse me. Laakiin iyagana waan garanayaa sida loo sasabto. Waxaan ku sasabta dhunkasho. Weligood ima diidi karaan. As for Daddy, he is the hardest to trick. He can always understand what I am up to. Aabbo isaga ayaa ugu sida loo sasabto. Dhaqso ayuu u fahmaa marka aan wax samaynayo. So I have to behave with him. I have to be a good boy. I show him I can count and read. Marka waa in aan xariif iska dhigaa oo tusaa in aan fariid ahay. Waxaan tusaa in aan wax tirin karo iyo wax akhrin karo. He is so proud of me. Aad ayuu igu farxaa. He takes me out and buys me a sweet. Banaanka ayuu ii kaxeeya markaas ayuu nacnac ii iibiyaa. That's it. I told you all my secrets. Now go try it on your family. Waa taas. Sirtaydii oo dhan ayaan ku sheegay. Haddaba orod oo ku tijaabi qoyskaaga. We hope you and your child enjoyed this story. To make the most of this journey, you can buy the printed version of this book. Having the physical book allows you to read along with your child and look at the pictures together. At the end of the book, you will find fun comprehension questions, creative activities, and games in both Somali and English. These activities are designed to turn learning into an engaging adventure, perfect for reading at home or in the classroom. You can find our books at somali4kids.com or by searching for us on Amazon. Finally, please consider leaving us a review. Reviews are vital for the survival of our organization and help us continue our work. You can leave a review by scanning the QR code in the book or by finding us on Amazon. Waxaan rajaynaynaa inay adiga iyo ilmahaaguba aad ugu bogateen sheekadan. Si aad sheekada si fiican ugu dhex gashid, waxaad iibsan kartaa buugga dhabta ah. Inaad haysato buugga gacanta lagu hayo waxay kuu saamaxaysaa inaad ilmahaaga la akhrido, sawiradana aad isla eegtaan. Dhammaadka buugga waxaad ku sidi doontaa su'aalo, waxqabadyo hal abuur leh, iyo ciyaaro aad u xiiso badan oo ku qoran Soomaali iyo Ingiriis. Waxyaalahan waxaa loogu talagalay inay barashada u beddelaan tacabur xiiso leh oo ku habboon akhriska guriga ama fasalka dhexdiisa. Buugaagtayada waxaad ka heli kartaa somali4kids.com ama ka raadi Amazon. Ugu dambayn, fadlan noo reeb faalo, review. Faalooyinkiinu waxay muhiim u yihiin jiritaanka ururkayaga, waxayna naga caawiyaan inaynu shaqada sii wadno. Waxaad faalada ku reebi kartaa adigoo sawiraya qircodka buugga ku jira ama nooga raadi Amazon.